maxamed iide geedi oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaankii hore ee golaha shacabka oo la hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in degmo la yiraahdo ka tirsan gobolka Boqol ay la wareegtay dawladda Itoobiya sidoo kale xildhibaanku waxa uu sheegay in laga taagay calanka wadanka Itoobiya isla markaana uu ka taliyo maamul ka amar qaata wadanka Itoobiya waxyaalaha gobolka Boqol aan ku arkay wiiya badna waxay ahayd markaan arkay magaalo ku jirta gudaha Soomaaliya 20 kilomitir oo ay leedahay dalka Itoobiya magaaladaas oo calanka Itoobiya ka taagan yahay oo xaafay askarta Itoobiya ay degan tahay oo muxuu ahaa adeegyada bulshada oo dhan ba iskale gudaha Soomaaliya 20 kilomitir ku jirto marka in hadda hadasho oo wax ka tabanay u muuqdana ma arkaysi mar haddii gudaha Soomaaliya magaalo ku taalo oo leeyahay magaaladan waa magaalo Itoobiya leeyahay oo 20 kilomitir gudaha Soomaaliya ku taalo oo loo aqoonsaday dadka deegaanka aqoonsiga magaalo Itoobiya ay leedahay xuduudka gudihiisa ay ku jirto meesha waxa ka garanaysaa inay tahay magaalo loo aqoonsaday dadka u aqoonsanaya Itoobiya leedahay magaaladaas waxay ku taalaa degmada gobolka Boqol lix degmo Tiyaglow iyo xudun waajib iyo Elberde iyo Aato iyo Yidwaay magaalada Aato waxay soo jirtaa gudaha Soomaaliya ku jirtaa oo 20 kilomitir gudaha Soomaaliya ku jirtaa sidaa darteed waxa weeye laba Aato jirtaa Aato Itoobiya iyo Aato Soomaaliya waana gudaha Soomaaliya ay ka samaysan yihiin ma aha dal Itoobiya ma aha waxa jirta laba magaalo dhanka kale xildhibaan maxamed iide geedi ayaa sheegay inuu ku rajo weynaa in dawladda hadda jirta ay wax ka qabanayso dhulboobka ka jira xuduud ay leedahay wadanka Itoobiya asagoo ugu baaqay madaxda dawladda Soomaaliya inay ku eegtay ilgoonay dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan dawladaha la leh xuduudda Soomaaliya kuwaas oo soo dhaafay xuduudooda waxaa isla lahaa dawladda hadda dhalatay baa muxuu ahaa yaa arrinta wax ka qaban doonta hadda tiina waxaalaha muuqdo uma eka in cid soo jido inay wax ka qabato oo maxaa yeelay dhulka kasii waaweyn baa la qaadanaya sidaa darteed hadda waxaa u dhiiridayba inay media u sheego in uu jiro dhul Soomaali oo hore loo qaatay dadku waxay ayaaman ka hadlayeen muxuu ahaa isada berbere oo la qaatay arrintan aaminsanaa in hore dhul badan oo Soomaaliya lama dalaateenin guddi loo lama dirin xuduudu lama kontrolin waxaan aaminsanahay berbera dhul fara badan oo ka badan oo Soomaaliya ay Itoobiya qaatay jiraan haddii la sheegayo aafanaan waxay cid wax ka qabanay in u sheegto oo og tahay in maanta dalka u taagan oo mas'uulka ah oo wax ka qabanay inay jirto waa aad u habooneed laakiin wax laga muraara dilaaco oo aad u foolxun yaa oo ka jira dalka Soomaaliya kaas ahaan meelaha xuduudaha wadamada Kenya iyo Itoobiya ayaa waxay dhulboob xoogan ay ka wadaan xuduudda ay leeyihiin wadanka Soomaaliya iyadoo hadda ay ka wada dawladda Kenya xuduudda ay leedahay Soomaaliya dhulboob xoogan ma jirto ilaa hadda go'aan cad oo ka soo saartay dawladda Soomaaliya xuduudeeda